xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa waxa uu si adag uga jawaabay hadal shalay ka soo yeedhay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo sheegay in 30 wariyo oo reer Soomaaliland ahi ay lacag ka qaataan dawladda Soomaaliya. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga wadani ayaa waxa uu hadalka wasiirka arrimaha gudaha ku sifeeyay mid lagu cabsi gelinayo saxaafadda madaxa bannaan, isla markaana waxa uu wasiirka ugu baaqay in cadeyntooda looga fadhiyo hadalkaas uu shalay sheegay. shalay waxaynu ummadda Soomaaliland arkaysay wasiiro ku tiraabaya arrin qalbi jab weyn ku ah qarannimada Soomaaliland. wasiirka amniga ee dalka ayaa waxa uu sheegay in 30 suxufiyiin iyo isugu jira TV-yo ay Soomaaliya ay ka qaataan mushaar ay Soomaaliya ka qaataan waa arrin aad iyo aad saxaafadan ugu xun Soomaaliland qarannimada Soomaaliland ku xun soo wasiirkii amniga inuu wax ka qabto oo intaanu sheegin uu gudbiyo si ay u gudbiso xeraalinta ay maxkamadda u gudbiso marka loo soo bandhigo dadweynaha waxaad arkaysaa in ay tahay baqdigelin saxaafadda iyo TV-yada ugu baqdigelinayo waayo hadday run tahay wasiirka amnigu isaga cidii qarbudada Soomaaliland ee u shaqeynaysa Soomaali weyn isaga wax ka qaban lahaa inuu saxaafadda isu soo taago soo aan waxba ka qaban wax aad la sheegin saxaafaddana ceebeeyo waa wax sharciga shacabka Soomaaliland dhibaato ku ah. waad arkaysaa inamo yaryar oo Facebook-yada wax ku caaya inay Soomaaliland ku dhaweeyaan inay jeesha ka buuxaan maxaa kuwa mushaharka ka qaata Soomaaliya maxay jeesha ka buux waayeen haddii isagu laftiisu qaran dubis yahay wasiirka laftiisu haddii qaranka duminayn muxuu wax uga qaban waayay hadday run tahay wax lala yaabo waxa wasiirkii arrimaha gudaha ee amniga qaabilsanaa iyo wasiirkii saxaafadda ee warfaafinta inay yiraahdaan oo wasiirka warfaafinta yiraahdo qamax bay saxafiyiinta Soomaaliland ka qaatay TV-yada Soomaaliland ay ka qaataan isoo wasaaraha ku-xigeenka Soomaaliya marka may kaga adkaadeen Hargeysa intii Soomaaliland xorta ahayd ma dhicin dad Hargeysa jooga suxufiyiin ama TV-ya oo Soomaaliland jooga oo ka shaqeeya oo Soomaaliya mushaar ka qaata waxa dhacay ma fashilka dawladnimada ee kulmiye dawladnimada fashilka uu ku keenay ayay ku tilmaamaysaa qaranka Soomaaliland waxyaalaha noocaas ee shacabka Soomaaliland wax u adkaysan kara ma marka waxaad arkaysaa wasiirku inaanu war sax aan lahayn hadduu war sax ahayo wala maxkamadayn lahaa oo shacabka Soomaaliland waxay ku wareerin lahaayeen iyadoo maxkamadda xukun ay gaadhay marka maxkamadda loo gudbiyo xukunkii lagu riday markaas shacabka Soomaaliland loo sheegi lahaa waxay markaa sheegayaan Hargeysa laga adkaaday Soomaaliland laga qaaday oo ay fashil yihiin bay sheegayaan waa inay is casilaan ummaddu u qaado mayso ama dawaa cadeen ummadda u soo bandhigayaan dama yaga ceebeeyay ama way cadeyn ama inta cadeyn waayaan bay xaalis inay saxaafadda shacabka Soomaaliland waa ka sugayaan. Cabdiraxiin Mooli Ismaaciil, shabakadda wararka News, magaalada Hargeysa.